بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة دبا خير قورة waxaan uga jeedaa murtidaas khilaaf kasta oo dowladaha deriska ah ama dowladaha aynu ururada aynu ka midnahay ku wada jiro wax kasta oo isku khilaafaan waxaynu ka nahay dhexdhexaad. taasaa waxay odhanaysaa dambaa reer guura. dowladdan jirtaana waxaan ka codsanayaa inay ugu baaqdo inay si nabada ku dhammaystaan, laakiin wax danoo inoogu jira ma jirto inaynu kala raacno. sooyaalka ama taariikhda way soo noqnoqonaysaa. Itoobiya iyo Masar baa islaayay, yaynu raacnay Masar. maxaynu ka dhaxalnay cadaawad. waxaynu Masar ku raacnay carab baynu nahay. waxaynu nahayna ilaahay baa og, laakiin mid un baan hubaa inaynu nahay kushiti. qodobkaa intaasaan ku dhaafaya. dambaa reer guuraa. waxaa hor yaalla baarlamaanka 4 sharci. waqti horena waa la keenay inay ansixiyaan baanu ka rajaynaynaa. aqalka sarena inuu sidaa ku dhaafaanu ka rajaynaynaa. guddiga doorashooyinku inay sidaa ku hantiyaan baanu ka rajaynaynaa. dabadeedna meeshii loo dhaqaaqi lahaa ay iftiinto. kuraas la kororsado waxba kuma fadhiyaan. aqalka sare waxaa u badan siciidani iyo cabdiweli iyo farool. waxba qabyaalad ku fali maayo. election baa la galay. ku-xigeenkii koowaad waa waayeen, kii labaadna waa waayeen. maxay idin taraysaa? maanta maqaamka muqdisho beelo fara badan oo aan waxba ku lahayn dowladda baa jira oo waxoodii la qaatay. kuwii shalay qaatay maantana ma inay ku darsadaan bay rabaan. ma suurtoobayso. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dee haddii sidii loo kala badan yahay ay cadaaladii noqotay in laysu xoogo waa arrin kale. laakiin ninkii cartana soo xoogay oo Kenyana xoogay oo Soomaaliya nagu xoogay, maantana waxa aan doonayaa inaan wax xoogo. dee caqli maaha. wixii dowladda loo idmadayna maaha, cadaaladna maaha. qofku waa inuu gartaa dalku muxuu u burburay. dalku cadaalad darro u burburay. cadaalad darro haddaynu ku dhisno wuu burburayaa.
waxaan leeyahay aqalkaa sare iyo matalaadda xamar iyo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin caqli, iimaan, qaneecaad iyo in wax la wada lahaado. laakiin wixii horaan ku darsanayaa wax haddii kale gow iyo gash ma leh war cid yeelaysaa ma jirto. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. waa arkayay qoraal uu soo saaray Siciid Deni xalayto, si wanaagsan baa beesha caalamka ugu jawaabtay. doorashada waxaanu u daba fadhinaa bay yidhaahdeen dowladda. waxay kaloo yidhaahdeen puntlanday cid idin matashaamiyaani dowladda federaalka ah ku jirin oo idinku aada soo xusheen. kolka uu qof xakiimi uu caqliga ka shaqaysiiyo waxaa kuu soo baxaysa maamulka puntland wixii loo dhisay inay dhammaadeen, balse uu u taagan yahay sedbursiinyo. tusaale yar, kuraastii Ceerigaabo iyo kuraastii Laascaanood ee ahayd 54 aqalka sare oo min 3 ah, bal hadda Sool iyo Sanaa kuraasteedii ku maqan yihiin. puntland bay ku maqan yihiin. maxaa yeelay iyadaa qaybinaysay. jambeel baaba ku fadhida qaarna ma garanayno cidda ay ku laaluusheen. kolkaad 54 eegto puntland baa ugu badan. markaad eegto puntland haddana waxaa ugu badan Siciid Deni iyo Faroole iyo Cabdiweli iyo Cumar Cabdirashiid. waka aasaaska puntland haddaad rabtaan waa intaa. maantana waxay rabaan inay isbaaro u dhigtaan matalaadda Muqdisho. oo waayo noo sheega kuraasta ay helayaan xildhibaanada ka soo jeeda Garoowe iyo Qardho. simple waa intaa. walaakiin Cabdulqaadir Cosoble oo xildhibaana iyo maas bay haysarkeen. anigu wax badan baan waxaan idhi uroy nimankaa puntland joogaa dulmi bay rabaan, waxayna dhibaato ku yihiin qaranka Soomaaliyeed. marka alliance-kii 60kii ka dhaxayn jiray horta waynay gartaan inuu meesha ka baxo, ilaa waa kuwa maqaamkii ku haystee. ereygan la leeyahay aynu bannaanka wax ku qaybsano, de horta awooddaa baarlamaankuba ma leh. meesha wax lagu qaybsanayo dowladdiiba waa joogtaa. ra-iisul baarlamaankii baa jooga, prime ministerkii baa jooga, guddoomiyaha aqalka sare jooga, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii baa jooga, madaxweynihii baa jooga. waxaa laga rabaa uun inay intaa ansixiyaan tirada. laakiin qaybinteedu waxay u baahan tahay technicalities kale. waxay u baahan tahay cid lagu kalsoon yahay oo hareeraha ka wada fadhida inay qaybiso. laakiin baarlamaanka dee dhexdiisa cidina wax ku qaybsan mayso. min ayna laka haada, xaggaad awoodda ka keenteen? baarlamaanku waa sharci dejin, waa xeer curiya, wax ma qaybiyo.
qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. aqalka sare xalqooyinkayga horena waa ku sheegay. aqalkii sare siduu isaga socday oo ay isu qarsanayeen oo weliba ay baagamuundayaal u ahaayeen, ilaa dastuurkii waanu haynaaye, ayuunbay haddeer qaraxday. waana kaa aqalkii qafil lagu jabiyey 9/9. waxaan xusuustay shariif sakiin markuu baarlamaanka xidhtay. taariikhda aan beenta sheegin ayaa aqalkaa sare wax inooga sheegi doonta. waa shirqool fog weeye, waa shirqool siyaasadeed baa aqalkaasi ku xidhan yahay. puntland, muqdisho, meel walba. laakiin guddoomiyaha aqalka sare oo maanta oday ah, soomaalidu taa kama filayn. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. soomaaliyay, isbeddel baa ka jira caalamkii, inaynu la jaan qaadnaa loo baahan yahay. inaynu garanno meesha aynu ka nimi iyo meesha aynu taagannahay iyo halka aynu u soconno ayaa laydinka baahan yahay. dan baa reer guuraa, yaynaan danteenna seegin. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.